think big and be positive buu ka dhigay yani inka qaayidka ama leaderka waxaa la rabaa maskaxdiisa inuu ballaariyo ufuqiisa inuu ballaariyo horizontalkiisa uu ku fikirayo inuu ballaariyo la rabaa ya wasic al-ufuq oo ha ka dhigin dayiq ya ha ka dhigin dayiq waxaad ku fikirayso waxaad ku haminayso ha ka dhigin wax yar ballaari waxaadna ahaataa positive always positive-ka negative-ka iska yaray haddii wax la sheego negative-ka caadi haddii waxa negative-ka caadi inta badan positive ahaw had iyo jeer filo inay waxa fiicnaanayaan ufuqaagana had iyo jeer horizontalkaaga waasac ka dhig yani haddaad adiga ku fikirto yani masalan hadda Soomaaliya kaliya iyo haddaa ku fikirto East Africa haddaa ku fikirto Africa haddaa ku fikirto caalamka waa kala duwan tahay different ya different marka had iyo jeer ku fikir ufuq waasac ufuqaaga ha yaraynin ha ka dhigin wax yani kooban oo yar ha ka dhigin waa qodob koowaad midda labaad waxa waaye baro sidaad challengeska u aqbasho noloshu challenges baa imana sunad sululux maaha wax walbaad gasho maaha sululux challenges learn how to accept challenges baro sidaad u aqbasho challengeska sidaad u aqbasho ama taxadiyaad ama caqabaad aqbal hadda dadka qaarkiis masalan markii aad tiraahdo niyo waxaas maxay u samaysmi waayeen ama waxa maxay u qaban weyday wuxuu ka hadlayaa caqabadaas ay hortaagan saas darteed sax ma arrinkaas arrin sax ma uguma horeeyo caqabado always waa jiraya aqbal sida uga gudbi lahayd inaad ka shaqaysaa la rabaa halka iska dhig adigu maxaa ku gudbi weyday maxaa kaa gaaban dhinacaas xoogga saar maxaa adiga caqabadaha miyaadan sidii la rabay ula dhaqmin diyaar garowgaaga maxaa ka dhinaa caqabada in laga tallaabay meesha u joogtaa haddii kaleeto ma jireen qof la yiraahdo naajix weeye qofkaas waa leader maba jireenba haddaanay caqabadi jirin ee dadkoo dhami orod ay meesha ku wada mari karaan soo ma marka sideeda caqabaduhu waxa weeye waxa kala saaraya dadkii bay kala saaraysaa ya qofka boodi kara qofkaan boodi karin ya marka baro inaad caqabaadka aqbasho oo la dhaqanto oo ka gudubto midda saddexaad waxa weeye continue to educate and improve yourself inaad horay u wado had iyo jeer inaad xirfadaada hogaamineed aad had iyo jeer horay u qaado aqoontaada hogaamineed iyo macrifadaada mashaakilka kor u qaado waxa aad la dhaqmayso iyo saaxada aad maaragtay ka dhex shaqaynayso si fiican u barato macrifadeeda had iyo jeer waa inaad kordhisaa siyaasadaad ka shaqaynaysaa masalan siyaasadaada ballaari tacliim baa ka shaqaynaysaa macrifadaada tacliinta ballaari businessaa ka shaqaynaysaa business macrifadaada ballaari had iyo jeer mahaaraadkaaga kor u qaad 4 ku tababaro practice garay disciplineka self discipline adiga intibaadkaaga shakhsiga ah iyo adigu shakhsiyan inaad intibaad yeelato oo aad yeelato maaragtay discipline aad yeelato hadii jeer ku tababaro waa qodobka afraad qodobka shanaad waxa weeye haddii aad sida u fikirayso oo wax baranayso oo mahaaraadkaaga kordhinayso oo intibaadkaaga iyo disciplinekaaga aad hagaajinayso mar walba fashilka ha ka cabsanin fashil uu imanaya ha ka baqina fashil ya fashil hadduu yimaado inaad cararto maya fashil waa imanaya la taqam never fear about the failure ka cabsan failure waxa weeye dariiq najaaxi ku geynaay wadadii aad ku gaari lahayd najaaxa ayuu kugu ridayaa ma garanaysa marka don't worry about it
ha ka cabsani hore uga sii gudub la tacaal xalli ka gudub iyo gadaal ku dhigin iyo dib ku ridin iyo ku niyad jabinin arrinka lixaad waxa weeye si aad culayska isaga khafiifiso wax badanna u qabato waa inaad barataa how to delegate shaqada si aad u qaybiso xamuulka qaar isaga rito oo dad kale u dhiibto maxamed arrinkan qabo maxamed kale arrinkan qabo maxamuud arrintaas adiga qabo hawlahaagii adiga inaad qaybiso mar haddaa lataa leader you have to delegate ma garanaysaa adigu wax walba qaban kartid bani aadan baa tahay you cannot do everything marka baro inaad delegation samayso mararka qaarkood waxaa dhaca dad madax ahoo iyagu wixii isku kooba wax walba isaga kubayin furayaashii baa loo baahan yahay iridda in la furo ha la raadiyo odagii khasnadaa la rabaa 10 shilin in laga soo saaro odagii ha la raadiyo asonseerkaa la rabaa in la furo odagii ha la raadiyo gaarigaa la rabaa in la wado odagii ha la raadiyo airbortkaa la rabaa in la tago oo boxkii laga soo qaado odagii ha la raadiyo wax walba ma odagii la raadiyo odagii qaban karaa odago dhimay you have to delegate the work you have to know how to delegate arrinka toddobaad waxa weeye ahdaaf iyo gool balaanno waa in la dejiyo ahdaaf hadaf baa la dejiyaa balaanna waa la dejiyaa lagu gaaro yani goolka lagu gaaro ahdaaf muxadada ahdaaftaaduna waa inay xadidan tahay goolska khudooyinkii adkaa ee lagu gaari lahaana waa inaad caddaysaa waa inaad caddaysaa for example hadda waddankan turkigan joognaa oo aan ka soo qaadanaynaa masalan xisbulcadaala intii aanu iman xukunka ayaa ahdaaftiisa waxaa ka mid ahayd balaanada u qornaa 2002 ka hor inta aanay waddanka taladiisa qaban 280,000 oo unit 280,000 oo unit inay dhisaan oo guryo dadka danyarta ah loo dhisay dadka danyarta loo dhisay hadda macruuf waaye 15 sano kadib macruuf waaye magaalo walba waa ka dhisan magaalo every city waa ka dhisan aad gaaray balad balan baloo dejiyay aad gaar loo dejiyay Soma waa la dhisay Ankara way ku taal Istanbul way ku taal Izmir way ku taal Haka way ku taal Tuulax way ku taal Diyarbakir way ku taal Lacag way ku taal meel kasta maxaa la yiraahdaa magacooda Toki Yeah. Toki baa la dhahaa Toki. Waa ka Toki. Sax, Xamuud baa yaqaan. Hadda Toki geliso Toki idaarad dhan hay'ad dhan loo sameeyay, nidaam dhan ay leedahay. Intaanay xukunka iman balaanka ugu jirtay 280,000 in la dhiso markii dambe ma aqaan inay nus milyan sii gaarsiiyeen oo ay kor u sii qaadeen. Laakiin markaas waxaa u qornaa inay dhisaan 280,000 inay dhisaan yani 3 milyan oo kale dad fuqara oo lagu siiyo guryaha masa khudda loo dejiyay qorshe loo dejiyay way socotaa masalan waxa qorshayaasha kamid ahaa exportiga wadanka waxa uu dhoofinayo in la kordhiyo ما يمن هذا حكم وين ما يمن ولا حكم ما يمن وجولز وإن نكردينه محي وحصوصارك يدوفنت وهي هي لكن إنا وحدوفسو وباهنت هاي waxay u baahan tahay wax soo saarid oo warshadii wax soo saaray dadku wax soo saaray wax beeray resourcigi iyo waxay u baahan tahay infrastructure lagu saaro alaabtii deked ay martay u baahan tahay waddo ay soo martay u baahan tahay hadda baryihii dhaweydoo aan Turkiga dhex marayay ayaan Kastamono markaan u socdo jidka Kastamono
istamono saddex wadaa ku geyn karta saddex wado mid waa waxay ka timaadaa Istanbul Samsun ay u socotaa wadada dheer waaye ya marka hadda Ankara joogto wadada Istanbul camal raacaysa adoo Istanbul camar iyo iska shariyo u socdo xagga Samsun u leexanaysa ya Samsun xageeda aadaysa markaad Samsun meel dhexe ilgaas markaa marayso wadadii waxaad ka haraysaa Samsun waad ka haraysaa ilgaas halkaas waxaad uga leexanaysaa Kastamonu taas waa wado kale Ankara ka saaraysa Chubuk meel la yiraahdo halkan magaalo yar oo halkan Chubuk la yiraahdo ee maraysa oo koonahan Istanbul Ankara ah halkaas ka dhex jeexaysa wadadii Samsun u socotay kugu daraysa dhexda kaaga daraysa halkaas kala qabsanaysa kadibna ilgaas ka leexanaysa wadada saddexaad toos bay halka uga baxaysa Jankiri meel la yiraahdo maraysa Jankiri markay ka baxaan ilgaas ay tagaysa tii xagga ka timi Samsun ka timi ee Chubuk bay ilgaas ku wada kulmayaan waa isgoynayaan tanna waxay aadaysaa Samsun iyo xaggaas iyo xeeba tanna waxay aadaysaa Kastamonu toos tan ugu dhow marka waa midaan dhinacaas aagaas marka si fiican u bartay wax badan gaari ku wada habeen maalin subax galab marka magaaladan Jankiri la yiraahdo halkan 100 kilomitir inoo jirta maalin dhow waxaan akhrinayay report ay soo saaraan hay'adda exporterska Turkiga exporterska dadka wax dhoofiya ya wax dhoofiya marka magaalo loo tansiinaya magaalo حتى magaalooyinka iyo tuulooyinka degmooyinka yar yar ya sanadkan maxay soo saartay saas darteed magaalooyinka 1 bilyan oo dollar ama 1 bilyan oo taala dhoofiya star gaara la saaraya xagga dawladda iyo siyaasadda iyo wax walba dhinac walba waxay ka noqonaysaa ihtimaam gaara la siiyo ya maxaa dhacay sanadkan waxay dhoofisay magaaladaas soo saartay magaalo yar waaye ama magaalo weyn waaye dhexdhexaad waaye laakiin 1 bilyan bay dhoofisay oo soo saartay khudaar yaanyo qoryo alwaax maxaan kuu sheegaa ya bugaag kada mش عارف ايش rinji ya marka magaaladaas yar waxaan arkayay oo aan aniga arkayay oo mar walba aan sii marayo soo marayay oo laba buur dhexdood ku taala yani waxa la siiyay calanka waxyaalo badan ah waxa lagu siiyay wax soo saarka number 1 lagu siiyay lacagana gashay oo yaraan 500 milyan ba magaaladii gashay oo dhaqaalaha ma gashay laakiin wadooyina loo sameeyay infrastructure loo sameeyay intay ka soo qaado dekada ay toos u geenaysaa ama Samsun geenaysaa ama waxay geenaysaa Istanbul ama waxay geenaysaa xagga yani marka waa in infrastructure waxaan ka wada waa in plan bad waxa dejisay goal bad dejisay sportiga hal siyaadiyo way sportiga xagga la marina xoolaha haya ariyaan haya geela haya malmalaan haya maydi baan haya liin baan haya bahalkii baan haya baydhabo korkeeda qansax dheer korkiisan ka soo saaray xageen geeya goorman geeya xagge sideen u geeya meeshan geyn lahaa يا إيجا قادنا أو يا أنا واشقين أو صاري كرا بيرتي دكتي وكسر صاري كرا لكن عالم كلا أنا لما حريري كرا يا الربا إنه مسكح هذا ديجيو ضد بقول كديجينا leadership يا they put some goals and they put plans